gubtay waxaad geysateen waqolahi abwaanado balka gubtay waxaad geysateen golaha abwaanada Soomaaliyeed ayaa baaq nabadeed waxay u direen beelaha walaalaha ay ku dagaalamaya degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe. Abwaanadan Soomaaliyeed ayaa waxay sheegeen in dagaal uusan wax faa'iido lahayn isla markaana loo baahan yahay in la qaato nabadda iyo xasiloonida. waxay u direen beelahaasi oo maalmihii ugu dambeeyay darartooda ay sii fogaatay waxay sheegeen in loo baahan yahay in xabad joojin lagu dhawaaqo isla markaana miiska wada hadalka iskugu yimaadaan beelahaasi ku dagaalamaya degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe. haddaan nahay golaha abwaanada Soomaaliyeed waa ka cabanaynaa arrinkaas waa fool xumo waa qiimo dhac waa darajo la'aan waa Soomaalinimo xumo waa qabiil xumo waa dulli waa ceeb waa waxaan la qaadan karin weey waxaan idan ka codsanaynaa walaalaheenow waxaan idan ka codsanaynaa Soomaalideenow waxaan idan ka codsanaynaa qabiilkeeniyow waxaan idan ka codsanaynaa tolkeeniyow waxaan idan ka codsanaynaa beesheeniyow Soomaali waa hal beel waa hal qabiil waxaan idan ka codsanaynaa inaad arrintaas joojisaan. golaha abwaaniinta iyo asxaabtooduba waxay halkan isugu yimaadeen colaadda ka aloosan zoonka muxuu ahaa Cadalle iyo agagaarkeeda in ay wax kala yiraahdaan oo ay u diraan baaq walaalaha inay kala joogsadaan. waxaana rajaynaynaa baaqayagaasu inuu miro dhalo in la maqlo abwaaniinta Soomaaliyeed in codkayagu uu wax taro na Ilaahay baan ka baryaynaa ummaddaana waxaan leenahay warna aqbala abwaaniintiinni baan nahay. waxaanu ka codsanaynaa dadka shacabka waxyaalaha ay isku dilayaan dadka Soomaaliyeed dagaaladoodu waa iska soo noqnoqon jiray laakiin sababo la isku dilo ayaa inta badan jiri jiray calan ama ciil ama ceel ama carshin waxyaalaha sababa jiri jiray inta mid la isku dilayo meesha ka jira ma jiro oo aanu garanayno waxaan filayaa ama aan rajaynaynaa aragtidayda oo daraskayga haddaan ka qaato inay jiraan dad fidmo walayaala oo nabadda iyo deganaanshaha iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed liddi ku ah inay isku dirayaan baan rajaynaynaa ama xog ku haynaa dadka walaalaha waxaanu idinku baaqaynaa annagoo ka mid ah abwaanada Soomaaliyeed inaad dagaalka joojisaan dadka walaalaha isdilaya. waxaan leeyahay ilaahay ka cabsada ilaahayga khaaliqa ka cabsada dhiiggiina isuma banaana ilaahay baa kala xarimay waxa isku diiday ilaahay yaa dhiig xaq darra kala daadisaan ilaahay ka cabsada dhiiggiina kala daadinina kala jooga haysdiilnina walaalayaal dhatin balgalo balwaay roojiya dhashika rooji dhimashooda rooji isgalka rooji habad rooji walaadan rooji humaanan rooji faylaanta bilaawa salaamantiin. walaalayaal dagaalka aad isdilaysaan dagaal wiil baa ku dhinta wiil kuma dhasho waxaa la idinka baahan yahay inaad nabadda qaadataan dadka aad dilaysaan inaad joojisaan inaad dhulka cid kale soo degmayse darisnimadiinana cid idin bedeli mayse inaad walaalnimadiisna adkaysaan ood wixii hore ka qoomaysaan ood ka shalaydaan oo aad nabadda qaadataan. waa ilmo doox waa islaan doox waxa ka dhaco waaya nawaaxiga Cadalle horta waxaan rabnaa inaan ka tacsiyeyno Cadalle nabad waaye dadka madaxweynaha ugu weynaa tagabo meel oo nabada waaye meesha dhibka ka jiro waa nawaaxiga Cadalle waaye nawaaxiga Cadalle labada beeloodoo ku dirirayso beelaha la dhashay qoroga faaxeed iyo xajiraano gaalkacyo inta Soomaaliya korra u roogsato dagaalkaasna afka ha ku joojiso. ilaahu subxaana qaadiro waan ka seexan weynay ilaahu uu xumay nagu haysaa walaalaha yaa isdilaya nawaaxiga Cadalle dhibka ka socda ilaahu jooji. waxaa isa soo taraya baaqyada ay siyaasiyiinta iyo dhammaan waxgaradka Soomaaliyeed ay u dirayaan beelahaasi ku dagaalamaya degmada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe. Axmed Cumar warbaahinta qaranka Muqdisho.